bismillaahi raxmaani raxiim daawayaal waxaad nagala socotaan barta youtube ku leenahay ee calas 24 bost taariikhdu maanta waa bishii 13 wararkii ugu dambeeyay ayaan haynay xiisada ka halaysan bariga Ukraine iyo Russia kumanaan dadweynaha oo careysanaya isku soo banaan baxay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev kuwaasoo watay burro waaweyn ay ku xardhan yihiin sawirka madaxweynaha Russia waxaana ugu yeereen inuu yahay kala taliye dictator dhigyacab dambiilaa waxaana dadweynahaas oo careysan kumanaan gaaraya bartamaha magaalada Kiev waxay ku soo bandhigeen in dalkooda ay difaacan doonaan halkaas oo ay sheegeen sidoo kale ayna ku qaadayeen gabayo iyo heese ay ku guwaabinayaan ciidamada qalabka sida ee reer Ukraine inay jilbaha u aastaan wuxuushta Ruushka ee duulaanka ku socda dalkooda daawayaal arrinta fara kama qonna jow low kow no dow bow ciidamada Ruushka ayaa dowlatus la sameynaya ciidamada Belarus iyo xuduudda ay la wadaagto Ukraine madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa maantay hawada u mariyay hadallo ay ka muuqato caro wuxuuna yidhi haddii Ruushku qabsado Ukraine ama dagaal ku soo qaado annagu dagaalka waanu gelin doonaa NATO oo dhanna waa diyaar jow no dow Biden oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi ma aqbalin doono in Ukraine la qabsado kow low no dow bow ariyaha arrin fara kama qodna daawayaal dhinaca kale madaxweynaha Ruushka Putin ayaa isaguna sheegay maantay hadallo kulkulna dusha uga tuuray madaxda NATO isagoo yidhi NATO waxay hubinaysaa Ukraine kow low no dow bow jow ariyaha safiirka dowladda Ruushka u fadhiya midowga Yurub Vladimir Shishkov ayaa hadallo kulkul u mariyay hawada NATO safiirka ayaa yidhi NATO waxay ku soo daabulaysaa ciidamo iyo gantaalo xuduudooda mana aqbalin karna arrinkaas waxa kaliya oo doonaya Ruushka waa in la saxiixo ama la ballan qaado in Ukraine aan lagu darin NATO iyo midowga Yurub daawayaal halkaan nagala socotaan oo bartaan ku leenahay YouTube-ka ee calas 24 bost daawayaal waxaad ogtihiin ama la socotaan wixii ka dambeeyay xilligii la aasaasay ururweynaha NATO inay ahayd dagaalkii labaad dhammaadkiisii 1949 heshiis dhex yaala NATO wuxuu dhigayaa haddii lagu soo duulo dowlad ka mid ah NATO in lagu soo duulay NATO oo dhan kow no bow jow heshiiskaas oo ah qodobka 5 ama sida loo yaqaan article 5 NATO ayaa 20 sano ugu dambeeyay waxaa markii Mareykanku ku duulay Afghanistan ayagoo dhan ay soo wada galeen halkaas haddii dowlad NATO ay ku duusho dal kalena waxay heshiiskooda u dhigayaa in ayaguna ay halka ku duulaan hase yeeshee arrinku fara kama qodna welina isma gaarin dhanka kale xogayaha guud ee NATO Mr James ayaa yidhi 50% adduunka waxaan NATO ay ka tahay awoodda ugu weyn Ruushka hadduu isku dayo daandaansi dagaal afka ayaa ciid u diri doonaa kow low bow jow no dow ariyaha arrinta fara kama qodna daawayaal sida la socotaanba waxaa lagu soo daabulayaa ciidamo Poland Romania ilaa Baltiga halkaas oo Mareykanku sanadihii ugu dambeeyay uu ku daabulayo iyo ciidanba dowladda Ingiriiska ayaa caasimadda Kiev maanta ayaduna ka dejisay diyaarado hub wada taasoo ballan qaaday ay ku gashay inay difaacan doonto Ukraine kow no bow jow dow ariyaha arrinku fara kama qodna dee Soomaali maxaa yaalde waa la soo jeedaa daawayaal halkaan nagala socotaan oo bartayada ku leenahay YouTube-ka calas 24 bost daawayaal xalku waa anytime ayuu faraha ka bixin doonaa waxaan la rajeynayaa wiigan ama kan ku xiga in dagaalku qarxo xaaladdu faraha ayayna ka sii baxaysaa gaaska Yurub uu ka sii yaraanayaa 60% ayuu sii marayaa madaxweynaha Mareykanka wuxuu ballan qaaday marashir jiraad qabtay in tuubooyinka ka yimaada Ruushka ay awood u leeyihiin inay jiraan Ruushkana ay